السلام الله عليكم تعالى وبركاته وعشان يلا باتنك بشا كوبا سنة لبضو كن يلا باتنك هل كداني قداوانا سنة وجنال كاقي وجنال كيني وجنال كي سهد دريد برنامج قداوانا سنة وبرنامج كيني وبرنامج كي وبرنامج كيين ودسوين وبرنامج كي عرم هاجعلك برنامج كان اسبوعي ومروحة كداوانا دونتا جنال كي سهد دريد آضاب برنامج كينا وحين قصو قادنا قصوين كجعال كيدبتا كوا أو كدعي دريد أنا دول سارنا هاي barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa qisadii aynu ugu magac darnay jaceylkii xajka ee dabaasha wacan soo dhawow daawada mar kale halka dinaga daawanayso waa janaalka xiisaha dunida qisadeena maanta waxay ku bilaabanaysaa sida tan Cabdiraxmaan Xasan Axmed waxa uu ku dhashay kuna barbaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Cabdiraxmaan aabihii waxa uu ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan iyo aabihii waxa ay nasiib u yeesheen inay ka mid noqdaan malaayiinta muslimiinta ah ee tagay magaalada Makka si ay u soo gutaan acmaasha xajka Cabdiraxmaan markuu u tagay magaalada Makka waxa uu nasiib u yeeshay inuu magaaladaasi ku barto Anisa oo ka mid ahayd jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi sheeko dheer kadib Cabdiraxmaan waxa uu jacayl dhab ah u qaaday Anisana sidoo kale Cabdiraxmaan iyo aabihii markii ay dhameysteen acmaasha xajka waxa ay ku qasbanaadeen inay dib ugu soo laabtaan magaalada Hargeysa walow Cabdiraxmaan soo laabashadaasi uusan ku qanacsaneen haddana waa uu ku qasbanaa Cabdiraxmaan ayaa ku soo laabtay magaalada Hargeysa kana soo fogaaday jaceylkiisa Anisa hore ayaa waxaa loo yiri shay waliba waxa uu qiimihiisu ku xidhan yahay inta uu ku jiro oo markaad ka soo fogaato ayuu muhiimad gooni ah u sii yeeshaa jaceylkana waxaa la sheegaaba markuu ugu daran yahay inay tahay marka labada qofood ay soo kala fogaadaan oo xuduudaha samayska ah iyo badda mawluhu ku kala baday ay kala fogeeyaan aad iyo laxaadna ay isugu hiloobaan kala fogaanshaha Cabdiraxmaan iyo Anisa jaceylkooda waxba ma uusan ka bedelin waayo aaladda internetka ayaa u ahayd marin ay isku mariyaan fariimaha jaceylka halkaas ayayna iska dugaashan jireen sidii dad wada jooga Cabdiraxmaan iyo Anisa ayaa muddo dheer wada socday waxa ayna ku heshiiyeen inay kamera dhaliyaan jaceylkooda oo ay isguursadaan waxa ay aad kaga doodi jireen magaalada ay isku arkayaan qaabka ay u kulmayaan iyo sida uu noqonayo arooskooda maalmaha qaarna waxa ay ka doodi jireen magaca ay u bixinayaan curadkooda iyagoo ku rajo weynaa inay kamera dhalin doonaan jaceylkooda laakiin waa adduunyada wax waliba hal mar ay isbedeleen kadib markii geeri degdeg ah ay ku timid Cabdiraxmaan aabihii maskiin Cabdiraxmaan oo awal baladaalan dhacay fogaanshaha uu ka soo fogaaday jaceylkiisa ayaa haddana geerida aabihii waxa ay ku noqotay falaad ay ku soo gameen waayaha adduunka taa oo ka haleeshay meel xun Cabdiraxmaan ayaa aad u murugooday dareemayna cidlo kadib geeridii aabihii galabgalbaha ka mid ah Cabdiraxmaan oo murugeysan guriga barxadiisana fadhiya ayaa taleefan soo dhacay waxaana soo wacay jaceylkiisii Anisa talow maxay u sheegi rabtaa Anisa ayaa Cabdiraxmaan u sheegtay inay xanuunsanayso Cabdiraxmaan ayaa cod dheer ku yiri tag dhakhtar si aad ula socoto xaaladaada caafimaad laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay dhakhtarku ma moodku celiyaa Anisa waxa ay tagtay dhakhtarkii waxaana loo sheegay inay ka xanuunsanayso wadnaha ayna u baahan tahay qalliin degdeg ah Anisa laakiin qalliinkii xaaladeeda caafimaad waxba ma uusan ka bedelin oo waxaa ku sii kordhay xanuunkii waxaana la jiifiyay isbitaalkii Cabdiraxmaan markii xaaladaasi loo sheegay waa uu ishayn kari waayay waxa uuna xirxirtay boorsadiisa waxa uuna go'aan ku gaaray inuu u safro magaalada Makka si xanuunka uu ula qaybsado jaceylkiisa Cabdiraxmaan ayaa soo goostay tigidhkiisii go'aansadayna inuu u safro magaalada Makka laakiin nasiib xumo wax waliba way isbedeleen oo galabgalbaha ka mid ah ayaa Cabdiraxmaan la soo wacay waxaana loo sheegay in ay geeriyootay jaceylkiisii Anisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkaas ayayna ku soo gabagabowday qisadii aynu ugu magac darnay jaceylkii xajka waad ku maasantahay daawashadaada fadlan ha ilmaamin inaad subscribe saarto janaalka muuqaalkaadna aad la share gareyso asxaabtaada si aysan kuu dhaafin barnaamijkan xiga furo calaamada gambalaalka ah saaxiib dhowna la noqo janaalka xiisaha dunida